والله أنا هذا تنازل وسوبي وأنا هذا ليه كرا تنازل كاسو سمي ومجيد waxaan u arkaa inuu yahay caqabada ugu weyn oo hortaagan doorashada wax tanaasul hadda Soomaaliya ognaana ma jiraan waxa ayaan daraa marka in madaxweynaha beenta ka xishoon waay wax aan sax ahayn oo dadkii maalin walba la taagan yahay inuu san shacabkiisaba ugu lahayn inuu la hadlo oo uu sheego aragtidiisa iyo rabitaankiisa iyo wuxuu rabo asagoo hadlay mar golonka ugu dambeysay maanaan arag baa soo hadlay waayahan oran marka nin mu'amarad ka shaqeynaya oo inuu wadankan xoog ku sii joogo oo waqti dhumis uu u isticmaalo taatiga doorashada si uu u diyaar garoobo ciidan u diyaarsado wuxuu dadku ku cabirin lahaa u diyaarsado u muuqanaya haddii uusan aqbalinin doorashada in la galo wixii la tabanayay oo dadka la tartamaya ay tabanayeenna uusan aqbalin si xal loo gaaro horta arrintaas waa arrin ayaan daraa in gobolka Banaadir uusan xuquuq ku yeelan Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya waxay arrintaas dambi laga galay gobolkan oo ay ka galeen mas'uuliyiintii ka horeysay madaxweynaha hadda mudxeledkiisa dhamaaday in aysan maamul madax bannaan yeelan oo ninka yimaadaba uu nin asagu adeega u magacaawdo ayaduna waa dambi kale oo dadka magaaladan iyo gobolka Banaadir ku dhaqan laga galay arrintaasi marka in looga faa'iideysto oo nin siyaasi uga faa'iideysto asagoo dan leh inuu taageero u helo inuu kuraas asagu inta soo niyeysto uu yiraahdo kuraas baan idin siinaya horta sax ma dawladnimadu waxay ku dhisan tahay sharci maadaama ay dawladnimadu sharci ku dhisan tahay waxa la rabaa qaab kasta oo wax lagu saxayo ama wax lagu bedelayo ama wax lagu soo kordhinayo inuu wada sharci soo maro dastuurka waxa ku qoran aqalka sare inuu yahay 54 xildhibaan ayadoo marka 54 dastuur ku qoran tahay adiga ma dhihi kartaa 12 baan ku daray ma baarlamaanku wax dastuurka lid ku ah ma sharciyeyn karo waxa la yiraahdaa unconstitutional sharci lid ku ah dastuurka baarlamaanna ma ansixin karo qaalina ma ansixin karo waa khalad marka in loo isticmaalo masiirka ummadda siyaasad ayadoo la rabo kursi in lagu tago ama lagu adeego taageero lagu helo ku meel gaar ah horta arrin sax ma waxa la rabaa xasiloonida iyo isfahamka iyo mustaqbalka bulshada wuxuu ku xiran yahay in wax walba nidaam sharci loo maro nidaam sharci ku soo baxaan dib loo markaan waxaan qabnaa waxa arrintaas in dib loogu laabto qaabkii wax loo wadaagay dib loogu laabto aqalka sare qaabkii loo qeybiyay dib loogu laabto oo wax Soomaaliya oo dhan ku wada qanacsan tahay ay soo baxaan oo xukuumadda dambe soo socota ay waxaan dib u habeyn ku samayso